qodobkii la jabsahay asoo socdaa ilmaha gadaal ala geeyay wax yar duqooshinka xataa ma arkino kastoo yar iyo kana gees loo bixiyay meel ay ka rooraan xataa jid loo suubiyo waxaa lagu qabtay waddanka Zimbabwe waxaa loo maleeyaa orod iyo waxaas iyo ma aha tartanka foolxumada ayaa waxaa lagu qabtay waddanka Zimbabwe foolxumaa lagu dhahayaa waraawo intaas oo waxaa la keenay foolxumayaal ah waxaa ku guuleystay hal tartame allahaas kii ka guuleystaya ilaahay ma iga hor keeno caawamado iyo maalin cadeed laakiin habar lay dhashay usna habar lay dhashay laakiin af Zimbabwe ku dhashay ma competition buuka muwe iyadoo bistoola wadanay dhashay aboogeesi maahino tartamahaasaa guuleystay tartamayaashii kale waa la xanaagi kaali arag xanaag dhiiq ma jirto garbeeshan waaye daacad ma u dhicin inta waaye war idinka maxaa waayaa la dhahay maxaa waaye daacad maxaa u dhicin ninkaan waa ujeediine war unanka la fiiriyay waa kala fiiriyay unankaa ka fool xunkan see loo sii kan oo waxaka Zimbabwe gacanan ku taag may hal xaafad dhan may deganaayeen amaana allah daawadayaal ku soo dhawaada magaalada Harare ee caasimada dalka Zimbabwe ayaa toddobaadkan lagu qabtay tartanka foolxumada kaasoo wadankaasi lagu qabto sanadkiiba mar tartankan ayaa waxay dhex martay 3 nin oo doonayay inay ku guuleystaan abaalmarinta foolxumada wadankaasi waxaase ku guuleystay tartame Mr. Maisam oo noqday ninkii ugu foosha xumaa wadanka Zimbabwe sanadkan William Masfini oo ah ninkii sanadkii hore ku guuleystay tartankan ayaa si weyn uga soo horjeestay natiijada tartankan waxa uu yiri foolxumadu maaha in ilkahaaga ay jajabin yihiin taasoo ula jeeday ninka ka guuleystay ay Maisam oo waxyaabaha uu ku guuleystay ay ka mid ahayd ilkihiisa oo jajaban Abigaili oo ka mid ah garsoorayaashii tartanka ayaa tiri micnaha foolxumada marka qaamuuska laga fiiriyo waa wixii aysan indhuhu u bageen ama aysan jecelaysan sidaas daraadeed waxaan raadinayay waxa aysan indhaha uba roonayn ninka ku guuleystay ee Mr. Maisam ayaa yiri waxaan isku dayay tartankan dhowr jeer oo hore balse waa ii suurtagali weysay balse hadda waan ku guuleystay William waxa uu ahaa guuleystigii 3 jeer oo hore tartanka foolxumada waxa uu na sheegay in garsoorayaashan aysan cadaalad ahayn walina uu yahay ninka haysta guusha guuleystigii tartanka foolxumada ee magaciisa lagu magacaabo Maisam ayaa la siiyay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $5,000 oo Mareykan ah taasoo noqonaysa abaalmarintii ugu badneed ee la siiyo guuleysto ku nool wadankaasi xilli dhaqaalaha wadankaasi uu marayo meel xun laakiin qofka ku guuleysta uu sidoo kale fursad ka heli doono TV-yada iyo idaacadaha wadankaas si uu barnaamijyada madadaalada uga qayb qaato قرحك ففانسين قرح أدونك ترتم فالحمى الغوى يا أبو عوض ألوسو بابا مصدع قل والله صدع قل أعوذ برب الفلق صدع قل أعوذ برب الناس هذه أوجي فيها يا أبو ملك تبارك يا سنة الساس عليه الصلاة والسلام أوكي خذ أبكى عفرات بس هذا ما ذي العبسني الماء كذا هرتضل سومريو